cabdiraxmaan warsame waxaa lagugu soo eedeeyey qodobada 434 uu ugu weyn yahay oo dilka ah dil in Caaisha dilkeedii ka qayb qaadato dishay kufsi marxumadda loo geystay qodobkaasna waa lagugu soo eedeeyey sidoo kale afduub laakiin waxaas dhan waxaa isku ururiyey qodobka dilka dembiga ma gashay mise ma gelin ha ma laga rabaa yes waa gashay dembiga waa gashay si dadban baan u galay waana ku dhamaystirayaa suga qof hadli kara ma jiro waxaad gudub samaysa oo waxayna ka ballan wax ka bedeshaa banaanka la geenay maxkamaddu ixtiraamkeedu waa ixtiraam gaar ah cabdifataax waa maqlaysaan mamiir qabtaa maskaxdaadu ma تمام بقولك بقول سما وحو قرتي دنبغا انو غلاي وا مقليسه دمان شعب سو مقلين امس هذا waxaan ka rabnaa marka faafahin baan rabaa inaan waxaan ka rab ya wa Google okre ams istaag adu istaag mana fariisanaysa istaag amar maxkamadda ma fariisan kartid waxaan rabnaa inuu cabdifataax naga siiyo su'aashan ku dina waxda cabdifataax maadaama ilaahay uu fududeeyay ba dambiga aqratay iyo wixii ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta meel ay joogaanba muddo tiro badan geliyay dhibaatooyin iyo hawl iyo mucjiso ay noqotay gabar yar dilkeed jarjarideed kufsigeed dambi inta laakiin la galo maxkamadda horteeda maanta ka qiratay waxaan ka rabaa sida dambigaas u gashay cidda kula gashay waxa sababay iyo meesha ku gashay fursadaas haysta ummadda u sharax maxkamadda u sharax waa mahadsantahay garsoorayaasha xafiiska xeer ilaalinta qareenada shacabka iyo ciidamada amniga salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu su'aal baa idin weydiisay mudana guddoomiye si degan oo aan ka fiirsaday baan kaaga jawaabay eedeymo badan baa aniga la ii soo jeediyey ma hal eedeyn xafiiska ilaalinta wuxuu ii soo jeediyey anigu kufsi baan galay xafiisku xeer ilaalinta wuxuu ii soo jeediyey kufsi wuxuu ii soo jeediyey dil wuxuu ii soo jeediyey afduub wuxuu ii soo jeediyey khalkhalgelin amni soo sidaa ma ahayna xareen okay anigu kufsi baan galay mudana guddoomiye شرحت كده كوفسيغا ay saa u gashay iyo cid kula gashay wax dil oo aan galayna ma jirto waa ku maqalay kufsi baa gashay yaa kufsatay Aisha kufsatay subhanallah noo sharaxad naga sii su'aal iyo wadi kufsigu noocu ahaa yaa kala qayb qaatay maxaa sheedan baa kulay sabab u ahay maxaa khasbay waxa inaad geysatid anigu waxa weeyaan kufsigaasi waxa iga dhaadhiciyay igu qanciyay inaan galo goobjoogna ka ahaado Cabdishakuur Maxamed Dige Cabdishakuur Maxamed Dige subax buu dhacay gurigiisuna ka dhacay 2 saac subaxnimo ilaa 2 saac bar Aisha ma soo afduubteen Aisha isaga afduubay isaga gurigiisa geeyay anigu waa uu soo wacay kaliya guriga lagu afduubayana Cabdishakuur Maxamed Dige guriga ayaa degan waxaa degan isaga iyo hooyadiis aduu mala degan may see ku ogaatay inuu Cabdishakuur soo afduubay Aisha oo uga qayb qaatay dadan ogeey aniga isaga ii yeeray yiri waan ku baahanahay darisna waa ahayn iska soo horjeeda soo jawaab ka dhigan ninka hadalkiisa waa maqlaysan sidoo ku yahay telefoon miya mise soo lagu leeyahay soo waxa xaalada ku leeyahay waan is aragnay anoo gurigeyga hortaagan waan ku rabaa buu yiri iimo anoo gurigeyga hortaagan waan la bistay waan baxay gurigiisa ugu tagay oo qol cid banaan oo aniga iga soo horjeeda waxaan u tagay isagoo qolka ku haysta Aisha waana xaqiiqo waxaan ka hadlay anigu cid i khasabtay cid waxa weeyaan iyahan jabtay cid isa sabtay inaan xaqiiqada ka hadlo midna ma jirto waxaan ka hadlayaa oo isa qabaa waa xaqiiq ilaahayna igu ogey waxa weeyaan waxaan rabaa inay maxkamaddu sidaa ii fahanto Cabdishakuur isaga
isagaa ii yeeray gurigiisaanan ugu tegey dabadeed waxaan u tegey isagoo qolkiisa irid bannaankaa ku haysta caaisho una xirxiranta muddo dood dheer ah kadib iyo cabsi fara badan oo aan dareemay wuxuu igu qanciyey wax fudud oo dhammaanaya inay yihiin waxaa weeyaan shaydaan baana ii kasbay anigu kufsi baan sameeyey goobtii faldambiyeedkana waan ka tegey caaisho oo nool waxyaabaha igu qanciya waxaa ka mid a in uu sii dayn doono markay hawshu dhammaato wixii intaa ka dambeeyana wixii aan mudano iyo se wax noqdaan la arki doono muddo saacada ah kadib goor gabalkii uu dhacay wuxuu ii sheegay in ay ka fursan weyday maadaama uu anigii iga da'weyn yahay in badan inay ka fursan weyday inuu sharaftiisa ilaaliyo inaan ka dhalinyaraysanayo haddii berri waxaa dhacaan in anigu aan ka soo kaban karo xagga da'da ama waxaa weeyaan xagga sharaftaba isagu wuxuu yidhi waan kaa da'weynahay haddii arrintaas ay soo bixi lahayd dhibka ugu weyn iyo sharaf darrada ugu weyn anugu igu dhici lahaa kufsiga gabadha dabadeed go-aanka weyn oo aan qaatay baa wuxuu yahay markii aad iga tagtay buu yidhi inaan dila caaisho anoo keligeeya gurigiisaan uga tegay mudana guddoomiye aniga iyo isaga iyo waxaan ahay nin eedaysanaa oo aan hadda goobta fadhin hala fariisto dhaqdhaqaaq ma jiro ninka wixii xaalada amniga ciidamada ammaanka u xil saaran abukaata xabiib fariiso adood maxkamadda aadan maxamuud cabdille may si fiican ninkaa dhalinyarada ahaa raas ahaan iyo qabiil ahaan baan wadaagnaa dadkana waan isugu badinaayo dugsigii saraan wada qaadanay waxbarashada gaalkacyuuna degan yahay yes waana reer gaalkacyood waa kaa waxaa weeyaan cabdishakuur waa yaqaan saddexdii naas labadii naas iyo cabdishakuur saddexdii naas way cidda dembiga gashay mudana guddoomiye waxaa weeyaan aadan da-aadda aniga hal sanaan ka weynahay ama 2 sano wax noocaasa markii aan qiyaaso markii aan qiyaaso da'diisa ma garatay walaalkay meesha waxaa keenay baa waxay tahay inaan isku DNA noqonnay iyo inaan isku hidaraac noqonnay taasna waxaan ku mari karaa waxaa weeyaan shareecada iyo kitaabka anoo ku dhaaranay xaqiiqada aniga iyo aadan kufsigaan ka qayb qaadanay waan maya isku mar baan ka baxnay guriga aniga aadan isku xilli baan ka baxnay markii aan kufsiga geysanay cabdishakuur wuxuu nagula taliyey waxaana inay kufsi keliya noqon doonaan waxaa weeyaan xaaladdu markay kala degtana uu gabadha sii dayn doono sidaasaan go-aan ku gaarnay waan ka tagnay anigu magaaladan aaday aadan magaaladan isku sii raacnay waa kala tagnay hal mar hal mar in badan buu nooga sii horreeyey gurigiisay taalla gabadha yes علاقات الانتقال اللي بين هي بريها المسافه اللي سجلان ما قدم بيا نوعا كلا هربش wax dambiyo aan wada galnay ma jiro kufsi hore aan anigu galayna ma jiro kufsi ama dambi weligay laamaha amniga imaysan qaban saldhigna kuma baryin magaceyguna oobi ma gelin cabdishakuur laba guriyo iska soo horjeedaan deganahay dariiqun baa noo dhaxeeya qiyaastii ku qiyaasan 12 mitir 12 talaabo waxa weeyaan waxaan kaloo cadaynayaa walaalkay inuu dambiga berri ka yahay anoon la igu khasbin anoon wax kale la ii sheegin midna xaqiiqadan sheegaya dhalinyaradi qaarankay duuxii dalkaygiyo ku mucdaya xooggii aan ku gaaranaynay dhalinyaradi qaarankay duuxii dalkeeniyo ku mucdaya xooggii aan ku gaaranaynay
dumarka dhaawaca kufsiga ugu dhiirada miyan gabar la dhaalano hooya naasu soo dhigin inta dhimir fayuulay dhagaysta dhimadaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhicinaa inta dhimir fayuulay dhagaysta dhimadaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhicinaa dig waa barbaarsho waa dhalaan gargaasho waa kuwii dhabtoodiyo naagu qaaday dhaabarkee dig waa barbaarsho waa dhalaan gargaasho waa kuwii dhabtoodiyo naagu qaaday dhaabarkee waana dhidibka kaabo rabka dhinac istaago qof kastoo dhasigana ma dhexlaayo guushe waana dhidibka kaabo rabka dhinac istaago qof kastoo dhasigana ma dhexlaayo guushe inta dhimir fayuulay dhagaysta dhibmagaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhicinaa inta dhimir fayuulay dhagaysta dhibmagaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhicinaa inta dhimir fayuulay dhagaysta dhimadaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool